howlgalladii maalmihii la soo dhaafay si isdaba joog ah ay wadeen qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe ciidamada militariga iyo AMISOM oo iskarabsanaya deegaanada kala hoostaga degmada Mahadai iyo degmada Jowhar iyo abaanduulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo hogaaminaya howlgalkaasi sheegay in la soo gabagabeeyay wajigiisa koobaad xilli kula hadlayay ciidamada tulada cali fooldheere oo ka tirsan tuulooyin hoos yimaada degmada Mahadai kadib markii ciidamadu ay ka sifeeyeen halkaasi fariisamano ay ka sameysteen kooxda argagixisada al-shabaab deegaanadaasi ay ku dhuumaalaysanayeen shacabkan halkaasi ku dhibaatay jireen hase haatee ugu horreyntii waxaa ciidamada la hadlay oo bogaadiyay gudoomiyaha degmada Mahadai Cabdullaahi Geeldoox waxaan alxamdulillaah ilaahay uga mahad celinaynaa ayadoo abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo horkacayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay maanta ku xoreeyeen deegaanada Waracmadoobe Maguurto Aqabduco Warciise Biyacade Miirtaqwo Cadowiley Kaxarey Lebaley cali fooldheere ugu daray oo meesha ugu dareedo halbuulaha istiraatiijiga oo dhaqaalahana ka arursan jireen kana howlgeli jireen oo taliskooda u weynaa gobolka Shabeellaha Dhexe abaanduulaha ciidamada xoogga dalka Cabdullaahi Cali Caanood oo la hadlayay ciidamadii ololkaas ka qayb qaatay ayaa sheegay in uu soo gab wajigiisii hore ee howlgalkaas aan soo galnay waxa saldhigu abaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo go'aankii ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda oo ahaa in caasimadda la nabadeeyo cadawgana laga xoreeyo gobollada Soomaaliya si mar labaad ummadda Soomaaliyeed lagu heedo isugu taagto loona soo celiyo qarannimadii sharaftii iyo ciisigii ummadda Soomaaliyeed hawshaasna waxa uu xil saaray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed annagoo calankayaga iyo dalkayaga iyo dadkayaga difaacayna dawladdayaga difaacayna shacabkayaga difaacayna xorriyaddii qarankayaga soo celinayna ummadayada xorriyaddeediina inaan ku dhimano diyaar baanuna saas maaha akayto aan halkaan isugu nimid howlgalkii wajigiisa koobaad waa noo dhamaaday wajiga labaadna waa insha Allah taala waa la gali doonaa gobolada kamid uu noqon doonaa ama Shabeellada Dhexe ha noqdo ama Shabeellada hoos ha noqdo ama Hiiraan ama Galgaduud ama gobol kasta ha noqdo Abubakar Maxamed Baadle warbaahinta qaranka tulada cali fooldheere degmada Mahadai